waxaad u jeedaan meeshan gadaasheeda waxaa yaala 500 oo kartoon oo qamri ah nooca la yiraahdo Signora Daniela oo kamid whisky pure whisky ah ciidanka saldhigga booliiska dekedda magaalada Muqdisho ee hoggaanka ilaalinta canshuuraha oo ku hor jira howl maalmoodkeedii caadiga ahaa ayay 28 bishii Maarso waxay gacanta ku soo dhigeen agabkan oo dalka la soo galin rabay waxa kale oo la jira oo aad dhinaca kale iyadana arki doontaan oo hadda meesha aan ku gubaynaa 183 kartoon oo ay ku jirto xanja dhacday waxa xusid mudan agabkaas wuxuu dalka soo galay 28 bishii Maarso waxauna dhacayay 9 bishii Abriil taasoo micnaheedu tahay 10 cisho gudahood soo dhicitaankiisa 10 cisho ka dhiman tahay ayaa dalka la soo galiyay si shuruucda dalka u yaala ay qabaana 6 bilood ka yar haddii ay ka dhiman tahay shayga inuu dhacayo lama soo gelin karo dalka oo lama keeni karo lagama ganacsan karo agabkaas aan idin sheegnay waa 500 kartoon oo qamri ah iyo 183 kartoon oo xanja ah oo ayaduna dhacday hawshaas waxaa qabtay saldhigga booliiska dekedda magaalada Muqdisho hoggaanka ilaalinta canshuuraha ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo waajib guud la wadaaga ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo waajibaadkiisu yihiin ilaalinta nafta iyo maalka muwaadiniinta sidaas oo kale hoggaanka ilaalinta canshuuruhu wuxuu qaas u sii leeyahay dabagalka iyo ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha dalka iyo isla markaasna in aan waxyaabo sharciga lid ku ah dalka la soo gelinin waxa xusid mudan qamrigan u jeedaan 500 kartoon ah wuxuu ku soo aadiyay qofkii keensanayay ama ganacsadii ku talagalay dalku inuu yimaado bishii barakeysaneed Ramadaan waxa aqliga saliimka uu noo sheegay haddii 500 kartoon magaalada ay soo gali lahayd hore waxaan u sheegnay in qamriga iyo daroogada iyo waxyaabaha mandooriyaha ay yihiin faktorka ugu weyn ee sabab u noqda amni darrada waxaan aaminsanahay annaga taliska ciidanka booliiska Soomaaliya haddii 500 kartoon oo qamriga magaalada ay gali lahayd amni darrada magaalada way sii kordhi lahayd sabab weyn ayuu ka noqon lahaa qamrigan inta kadib waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo qamrigan oo 500 oo kartoon ah halkii kartoon waxa ku jira 12 dhalo oo qamri ah 12 kaas dhalo sida cadadka qiimeyntooda lagu sheegay dadkii khibrada u ahaa oo gacanta ku hayay waxay noo sheegeen in dhaladii ay ku fadhiso $130 taasoo 500 oo kartoon oo dhalo qamri ah oo kartoonkiiba 12 xabay ku jirto wuxuu noqon lahaa 6000 oo dhalo oo qamri ah oo dhaladiiba ay tahay $130 waxay isku noqon lahayn $780,000 aqliga saliimka qofka ganacsada ahaa ee dalkan marxaladdu ku jira loo yahay ee taageero dhan walba looga baahan yahay in maxaa la yiraahdaa ganacsigiisa iyo maalka Ilaahay si inuu isticmaalo dhanka wanaagsan qamri iyo $780,000 qofka khasaaray ee isla markaasna aan sharaf iyo sumcad ummadda dhexdeeda ka lahayn isaga yaqaan meeshu ka aadi lahaa ganacsada kale waxaan uga digaynaa har iyo habeen ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxay u taagan yihiin ummadda ka ilaaliyaan waxyaabaha noocaas iyo wixii la halmaana mar kale u sheegaya ummadda in aan ganacsigooda iyo naftooda iyo maalkooda aysan ku qasaarinin waxyaabo aakhire iyo adduunba aan waxba u taraynin inay fidno iyo dhibaato kale si horseedaan moogayeen shuruucda dalka u yaalan ay mamnuuceen waa maadsantiin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh